oo ka dhacay deegaanada ay ka armiyaan maamulka Ahlusunna gaar ahaan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Caabud Waaqay gobolka Galgaduud ayaa waxa lagu taageeray ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon oo loo yaqaan Saacid isla markaana uu magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo madaxweynaha dowladda federaalka Professor Xasan Sheekh Maxamuud maalinimadii shalay waxaana dadka oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Caabud Waaqay iyo Dhuusamareeb ay si aad ugu muujiyeen sida ay u taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub Soomaaliya waxaana sidoo kale banaanbaxa hadallo ka jeediyay mas'uuliyiinta maamulka Ahlusunna oo ka qayb galay banaanbixii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa hadal ka jeediyay mas'uuliyiin oo kamid yahay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Geedo Barow isaguna sheegay inay taageerada garab taagan yihiin isla markaana Dhuusamareeb ay gooni u tahay inay dhigto banaanbaxani maadaama taariikhda dhinaca nolosha marka la eego ee ra'iisul wasaaraha cusub uu yahay halka uu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sidoo kale ku qalinayeen eray ay ku taageersan yihiin in Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto mar kale taasina ay muujinayso iyadoo ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay Cabdifataax Xasan Faakir ra'iisul wasaarenimo madaxweynaha dowladda federaalka Professor Xasan Sheekh Maxamuud maalinimadii shalay waxaana dadka oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka Caabud Waaqay iyo Dhuusamareeb ay si aad ugu muujiyeen sida ay u taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha cusub Soomaaliya waxaana sidoo kale banaanbaxa hadallo ka jeediyay mas'uuliyiinta maamulka Ahlusunna oo ka qayb galay banaanbixii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa hadal ka jeediyay mas'uuliyiin oo kamid yahay gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Geedo Barow isaguna sheegay inay taageerada garab taagan yihiin isla markaana Dhuusamareeb ay gooni u tahay inay dhigto banaanbaxani maadaama taariikhda dhinaca nolosha marka la eego ee ra'iisul wasaaraha cusub uu yahay halka uu ku dhashay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sidoo kale ku qalinayeen dibadbax ballaadhana lagu taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Garaad Saacid oo xalay toona laga dhawaaqay qasriga madaxtooyada ee Soomaaliya ayaa waxa maanta uu ka dhacay magaalada Buuhoodle iyadoo boqolaal dadweyne ay isugu soo baxeen wadooyinka iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Buuhoodle isla markaasna ruuxa caleemo qoyan iyo waliba astaanta caanka ee qaranka Soomaaliyeed ee calanka buluug ee dhexda kaga taala xidigta Shangeesta waxayna boqolaal dadweyne ay socdaal dheer oo lagu ku soo wada maray suuqa weyn ee magaalada Buuhoodle waxayna ugu dambeyntii isugu soo shubteen fagaaraha hore ee dugsiga hoose dhexe Darawiish ee magaalada Buuhoodle halkaas oo ay ku soo bandhigeen dareenkooda ku aadan taageerada lixaad kale u hayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Garaad Saacid wuxuu ka soo shaqeeyay dowladii qaranka Soomaaliyeed dowladii dhexe wuxuu ka soo qabtay wasaaradda maaliyadda iyo ka soo shaqeeyay waxa kale oo ka soo qabtay wasaaradda kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya haddii aanu nahay shacabka gobolka Cayn aad iyo aad baan u taageersanahay waanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa calamaan qoyan farxad iyo reereen ayaa u dirayaa ra'iisul wasaaraha la doortay Soomaaliya waxaanu nahay dadkii u soo halgamay Daraawiish ee awoowayaashood iyo aabbayaashood lagu laayay ee calanka Soomaaliyeed u madhay waxaanu taageeraynaa inaan Soomaaliya kala go'in cidii kala go'aysana laga ilaaliyo waxaa dhaxeen xafladan ay u dhigayaan dabaaldega u dhigayaan ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya loo magacaabay madaxweynahana horaan ugu dhignay
waxaan salaamayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo golaha baarlamaanka ee golaha sharci dejinta oo dawladdii soo dhiso dhexe golihii fulinta si dalka iyo dadkaba maamulku u gaadho waxaanu rabnaa niman waxqabaniba eedoobo inay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaankuba eedoobaan wax ku qabad ku eedoobaan inta dawladda ka soo horjeedda ku Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha adkaato ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha baarlamaanka maxay gudoomiyaha baarlamaanka inta daadihinaysa Soomaaliya ee maanta ma garatay gooba dalka iyo dhibaatada dadkooda haysata ee raba inay kor u qaadaan ha noolaadeen dadka Soomaaliya ilaahay ma hadbaanu celinaya macbuudka ilaahay ma hadbaanu celinaya magaca Soomaali ma hadbaanu celinaya mas'uuliyiinta dhan ma hadbaanu celinaya sidaan u midoobnay ma hadbaanu celinaya macfalkan iyo ururkan ma hadbaanu celinaya dibadbaxayaashan ayaa iyagu ahaa kuwa ay wejigooda ku dheehan tahay farxad iyo reenreen iyagoona isla markaasina sheegay inay si weyn uga dhursugayeen muddadii 22 sanaha ee burburka ku jirtay waddanka Soomaaliya inay mar labaad geeyiga Soomaaliya ka hanan qaado dawlad Soomaaliyeed oo hanata shacabka iyo waliba dadka ku dhaqan geeyiga Soomaaliyeed